maantay waa maalin qalbigeenna xusuus murugo leh ee aan wanaagsanayn ku reebtay maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maantay inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taagannahay marka ugu horraysa waxaan rabaa inaan halkan idinkaga caddeeyo farriin aan idiin soo gudbiyo farriin madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa xasan cali khayre ay ii soo dhiibeen farriintaas madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ii soo dhiibeen waxay tahay naga gaarsiiya shacabka gobolka banaadir ee samirka badan ee dulqaadka badan inay ku habboonayd maantay inaan kala soo qayb galno munaasabadda an taariikhiga ah oo ka turjumta dadkaani ma ilaabo cidda wax yeesha farriintaas waxay xambaarsan tahay maadaama ay tahay xilli qorrax kulayl ah meeshu ay tahay waddo laami ah haddaan dhammaanteen kala qayb qaadanno dhibaato qorrax waa rafaadayaane aan koobno cidda nooga qaybgelaysa isla markaas farriintayna gaarsiin karta intaas ayay isoo fareen waad maqlaysiinaan filayaa waxaad garan kartiin haddii mas'uuliyiin fara badan ay meesha yimaadaan hadalka la wareejiyo oo mas'uulba mar loo dhiibo in taagnaanshaha iyo qorraxda lagu dhibtoonaayo si aan loogu dhibtoon ayagoo u dhimrinaya shacabkooda ayay yidhaahdeen wixii aan dhihi lahayn adigu noo dheh warkayga waad maqashinaan filaya sidaas darteed walaalayaal maalintan ayada ah maalintan 14 oktoobar ee wixii aad ogeydeen ay ka dhaceen goobtan maxaa laga bartay waxa laga bartay inaan isku duubmi karno waxaa laga bartay inaan adkaan karno waxaa laga bartay in cadowgeenna aan u midowno waxaa laga bartay cadow aad u weyn aad iyo aad cadow u weyn oo gudaheenna ku dhuumaalaysanaya inuu jiro ayaa laga bartay haddaba darsigaas aan cadowgeenna ka barannay ee foosha xun ayadoo lagu dul shaqaynaayo ayaa waxaa la sameeyey madaxweynaha soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayagoo bulsho weynta soomaaliyeed hor kacaya ayay bukaankii ku deeqeen dhiiggooda sida aad halkaas ka arkaysiin madaxdii dawladda soomaaliya madaxdii qaranka soomaaliya haddii ay dhiiggooda bixiyeen oo ay ku bixiyeen meel fagaaro ah taasi waxay ka dhigan tahay shacabka soomaaliyeed oo faraha badanow walaalihiinna dhibanayaasha ah dhiiggiinna siiya saasaa loola jeedaa walaalayaal waxaa kaloo laga bartay dhallinyarada soomaaliyeed hadday yihiin kuwa ardayda ah iyo hadday yihiin kuwa waxbarasho dhammeeyaba inay waxbarashadoodii tacliintoodii ay meel dhigaan oo ay yidhaahdaan wax walba waxaa ka horreeya inaan dalkeenna difaacno waxaan idin xasuusinayaa
dhalinyaradii arrintaas u soo xilqaantay oo kacday oo aan hubo inaad wada garanaysiin dhalinyaradii Soomaaliyeed dhalinyaradii Soomaaliyeed dhalinyaradii Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantiin aad iyo aad u mahadsantiin shucuubteena aad muujiseen oo kaadiya marka oo kaadiya oo kaadiya oo kaadiya oo kaadiya aad u mahadsantiin aad iyo aad u mahadsantiin dhalinyaradii Soomaaliyeed markay la soo xiriireen madaxda dawladda waxay yiraahdeen cadawgeena xageesa loo waxay go'aansadeen meesha salka u ah inay tagaan lana dagaalamaan cadawga ayagoo mutadawiciin ah oo aan waxba qaadanayn dhalinyaradaas ayaga ah waxa ay degeen oo saldhig ay ka dhigteen magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose waxaad ogtihiin Shabeellada Hoose inay tahay meesha ugu badan meesha ugu dhibaatada badan ee cadawga uu ku dhuumaalaysto haddaba walaalayaal dhalinyaradii ka soo baxday maalintaas wixii dhacay dhalinyaradii ka dhiidhisay maalintaas wixii dhacay waxa ay joogaan magaalada Marka ayagoo xambaartay mas'uuliyadda amniga iyo difaaca deegaankaas haddaba walaalayaal gabdhaha gadaashooda taagan ayaan maxamed adiga magaca haddaba walaalayaal labada gabdhood oo gadaashayda taagan waxay ahaayeen ardaydii dugsiyada wax ka baranaysay ee qalinkii iyo buuggii isdul saaray yiraahdeen waxaan u shaqaynaynaa dalkeenna kaalinta nooga aadan ha naloo diro ayay ka mid yihiin labada gabdhood labada gabdhood waa Ayaan Maxamed oo gabadhaan ah iyo Daado Maxamed Jamaal oo gabadhaan ah gabdhaha waa u jeedin waa ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka booliska kuwa howlgallada gaarka ah gabadhaanina waa ciidanka booliska qaybta wadooyinka traafiga waad u jeedin waxay ka turjumaysaa dareenka Soomaaliya ay ku abuurtay dhacdadaasi iyo dhalinyarada Soomaaliyeed go'aanka ay ka qaadatay ayay ka turjumaysaa waxaa laga bartay marka dhacdadaas waxaa laga bartay dhalinyaradii oo ciidamadii qoranaya oo mutadawiciin ah oo aan dhahayn mushaarkeena aaway aan dhahayn waxaa kaloo laga bartay culimada Soomaaliyeed iyo dadka samafalayaasha Soomaaliya ayagoo kaashanaya dawladooda inay u ururiyaan taakulayn dhaqaale dhibanayaashii wax ka soo gaareen 14 Oktoobar 2017 waxaa laga bartay oo kale in loo baahan yahay bangi dhiigga lagu diyaariyo lagu kaydiyo in loo baahan yahay ayaa laga bartay sidoo kale waxaa laga bartay in loo baahan yahay xarun gargaarka degdega ah
ee dabdamiska iyo ambalansooyinka oo diyaar ah saacad kasta in loo baahan yahay oo ay ku jiraan gaadiidkii iyo shaqaalihii gargaarka degdegga ahaa. waxaan idin xasuusinayaa iyadoo laga ambaqaadayo talooyinka iyo tusaalooyinka madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu shalay dhagax dhigay 2 goobood oo midna uu yahay gargaarka degdegga xaruntiisa, midna uu yahay bangiga dhiigga. labadaas xarumood ayuu ra'iisul wasaaruhu shalay dhagax dhigay. waxa kale oo diyaar loo yahay oo madaxda Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin, anigana la isoo faray inaan idin soo gaarsiiyo in dawladda Soomaaliya ay halkeedii ka sii wado taakulaynta agoomaha waalidkood ku waxyeeloobay dhibaatadii 14 Oktoobar. sida aad la socotaan, maalintaas waxaa loo saaray guddi aqoon-yahano iyo culamaa udiin ah oo taakulayn gudaha iyo dibadda uga ururiya dadkaas dhibanayaasha ah, oo aad iyo aad arrintaas isu xil saaray, meel fiicanna wax soo dhigay sida uu sheegaya sheekhi hadalkan loogu furay.